halkan maanta waxaan u wada cabitaan aad iyo aad u caafimaad badan, aad iyo aad energy badan u qabo maadaama Ramadaan nagu soo food leeyahay waxa u baahanahay energy badan baxa in energy badan hadana helno. Cabitaankan caafimaad badan uu qabaa hadana waxa ka helaysaa tamar badan. Horta Ilaahay caafimaad iyo barwaaqo bashbashan uu gaarsiiyo Ramadaanka bil cibaado waa cibaadadena si fiican u gudano dhamaanteen soo dhawaada. Bismillahirrahmanirrahiim. Cabitaankeena wuxuu ka kooban yahay hadda guda galeena. Cabitaankan laba shay oo aad iyo aad u caafimaad badan oo aad iyo aad muhiim noogu ah ayuu ka kooban yahay. Haddii aan guda galno wixii aan ka sameynay cabitaankeena waxa ka sameynay liin macaantaas liin orange sida ujeedaan oo meel walba iyo qof walba uu heli karo iyo kaaroodka iyo liin macaanta caafimaadka maxaa waa doorkii u leeyihiin qof walba uu ogsoon yahay oo aad bay u fiican yihiin. Waxa u baahan tahay hadda kaaroodka waa iska hoolaya waa iska xoqaaya maadaama kaaroodka kor wasakh badan ku qaba dadka gacmahooda waxaas iska soo hool kadib iska dhaq soo jarjar. Asxaabtayda Facebook page-ka inaan u follow gareysaan hilmaamina sidoo kale YouTube-keena linkii hoos soo dhigaa iso subscribe gareeya soo dhawaada dhamaantiin. Kaaroodka waa soo jarjaray waa soo dhaqay kadib sokor waxa ku soo daray bakeeri hafkiisa biyana waa ku soo daray. Sokortaas dhan ma isticmaali dooni mana cabi doona waxa waa kaliya sida karabna waa arki doontaan. Biyaha ku soo daray biyo fara badan ku soo daray iyo sokor iyo kaaroodka dabka soo saaraya. Liin dhanaan hal xaba ku soo daraa liin dhanaanta taste fiican siinaysa dhadhankii ku saxaysa. Alaabtan dabka soo saarayna wixii aad ka isticmaalana waa arki doonaa. Ma garateen cabitaankan haddii aad samaysatid Ramadaanta dhan ma dareemi doontid waxa waaye maasha Allah aad energy-gaada ku soo laabtay ama hal dhijira soo miisa maalinta xigta. Kadib waxa uu maanay liin macaanta dhankeeda liin macaanti hadda waan soo jarjareynaa waan soo gogoynaa iska dhaq iska soo gogo aad inta kugu filan qiyaastaada. Haddii maxaa la dhihi jiray inta maalintaas aad samaysanayso waad samaysan kartaa oo maxaa la dhihi jiray inta galabta waxaas aad samaysatay iska cabi kartaa. Haddii waqti haynin oo qof waqti haynin aad tahana wax badan samayso bac ku xirxir fridge-ka qaybtiisa kore freezer-ka iska gasho si maalin kasta waqti kaaga cunin oo maxaa la dhihi jiray oo samaysanin maalinba soo baxso ama weelal waxa jira cabitaanka iyo waxaas lagu keydsado kuwaas la gasho meesha. Marka liintina waan soo miirnay kadib waxa uu maanay dhankeena kaaroodka waa kaas had saas u soo dhiimeen ma aragta kaaroodka wuu kare qaadadu soo kala goonaysa asagana macaana ku jiro ogtiin macaaneeja Ilaahay u sameeyo qaba kaaroodka. Marka waxa ku soo dareena hadda biyihii aan ka soo miirnay liin macaanta biyaheedii ku soo dareena alaabti dabka waa ka soo dejinay. Liin macaantii soo miire ku soo dar alaabti dabka ka soo qaaday. Marka waxa waaye digsiga waxa ku jira dhan ma isticmaali doono kaliya liinteena biyeena ku dhex shubnay hadana waa ka soo shubaneynaa kadib waxa ku sii sameeyna waa isla arki doonaa. Cabitaankan laazima waxa waaye energy badan oo idin siinaya caafimaadku u wanaagsan yahay waxa waaye Ilaahay Ramadaanka naga aqbalo Ramadaanta soo dhaweeya caafimaad iyo barwaaqo bashbash ku soomo oo ugu dhamaado Ilaahay naga wada dhigo naga wada aqbal cibaadadeena. Kadib waa ka soo shubay wax yar waxa soo raacina kaarood dhowr xabo laakiin macaanka dhan ma soo shubanayay. Kaarood dhowr xabo qaad ku soo qaadana iyo cabitaanka liinta ah liinta ka soo miiray xitaa biyo kale ma ku shubin alaabtan biyahan kaliya ku liinta ka imaade. Liinta marka uu heshiid weelkaas waxa biyaha dhan way ka soo miiraysaa oo wax dhan ku haraya. Kadib alaabtan waxa u baahan tahay inaad soo shiidid blenderka la imaanay waa shiideena maadaama kaaroodka uu soo kare kaaroodka inuu ku soo karo ku dadaal maxaa yeelay aad u tigu waxa ka jabayso tan si fiican ku shiidayo. Hadda waa soo shiideena si fiican isku dhex galayno ujeedaan cabitaanka dhan wuu isbedelay orange uu noqday kadib waa soo miireena maxaa sugaysaa weelka ku soo shubo soo miiro oo ujeedaan quruxdiisa sidoo ku soo baxay laga ma sheekeyn karo inaba caadi ma aha dhadhankiisa ka sii daran maasha Allah tabarakallah. Kaas hadda waxa waaye horta sira ka qaadaa weelashaada la ku shubo waxa waa isku qabooji cab marka haddii maalin kasta aad sameyn karin hal mar la sameeyo kor iska galay weelasha lagu tala galay ku shubo misbaac ku shubo cabitaankan caadi ma aha maasha Allah tabarakallah. Haddii aad baratid wax kale ma ku afuri doontid xilliyada afurka is horta u dhaxaysa ayaga la isku qaboojinay energy badan waa helaysaa maasha Allah. Wax jecelahay wax walba faa'iido leh ina idinkana idin la soo wadaago si aad uga sii faa'iideysataan dadkii aanan ogeenin uga sii faa'iideystaan muuqaalka noo share gareeya noo like gareeya si meel dheer uu u gaaro YouTube-keena hoos yaalo iso subscribe gareeya muuqaal badan halka noogu soo gudbin doona maadaama hadda Ramadaan la gaaray xilli shaqo tahay waxa waaye wax badan halka noogu soo gudbin doona hana moogaanin follow the page-ka si muuqaal walba soo galino ku soo gaaro
hadduu kaasaas camal bac ugu shubanay bacaha ku xirxire kor iska gelinay freezerka haddii aad time u hayn haddii aad haysidna waqti caadi maalin kasta sameyso ayadoo fresh la iska sameyso bis cab shiido iska caba saas la yeelay haddii waqti u hayn laakiin waxaa sameyn kartaa bacaha ku shubi kartaa weelasha cabitaanka loogu talagalay in lagu keediyo oo ku shubeysa freezerka kor gelinay afurka markuu ka dhiman yahay saacad mise saacadii bar camal ka soo bixinay banaanka iska soo dhigay barafka ku shubo biyaha ku soo shubo hadii laga sheekan karo cabitaanka dhadhankiisa cid taqaana way taqaana hadii culays kas badan aad diidayso cabitaanka culus dadka caba aan ahaynina biyo la iskaga dare si wax yaro iska simple u ku noqdo cabitaankaada ma sha Allah tabarakallah laga sheekan karo inaba caadi ma aha Ramadan Mubarak Holy Records Ramadan